kulanti wacan oo wanaagsan Nederlandii maadaawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada xiisaha aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Soomaaliya oo Shiinaha kala hadashay arrimo xasaasi ah kadib tallaabada ay qaaday dawladda dalka Itoobiya oo ku aadan xeebaha Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo weerar afka ku qaaday madaxda Villa Soomaaliya iyo saraakiisha ugu sarsareysay ciidamada Itoobiya oo gaaray gudaha dhulka dawlad deegaanka Soomaalida. qodobada kale ee caalamka ugu waaweyn waxaa kamid ah ciidamada Israa'iil oo goor toogasho ku dilay caruur u dhalatay dalka Falastiin iyo waliba booliska dalkaasi Jarmalka oo nin hubeysan ku dilay meel aan sidaasi kaga fogeen qunsuliyadda Israa'iil ay ku leedahay gudaha Jarmalka. qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku daawan doontaan madaawadayaal. sinjaan muuqaalka u guda gal waxaan idinka codsanayaa boggeena Shumac TV soo follow garaysan sidoo kale muuqaalka like saar oo share garay. هجاك أنا كبر المضاوضية ولد الفدرالك الصومالي يا شيناها كلا هذا الشر مع أساسي كذب طلابة يا غادي ولد الدلك إثيوبيا يدك وادن عباد الصومالية شيناها الصومالية دكتور حسن شي محمود يا جرو شر قدومية شر دعوت كيسكاشيكا دخلها بلوغ الصومالية شينا شركني يوعو كدعي مقالة بجاني عاصمة الدلك شينا الكاسي أو كسعودة شر مدعيت كدولة شينا يدرالك أفريقيا إسلام مركانا يكسوغيهن مداحد أفريقيا كو ذوقوا وين وزيرka kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo ka hadlaya shirka ayaa sheegay in Soomaaliya ay weelantahay horumarka dhaqaalaha buluuga iyo iskaashiga dhinacyada Shiinaha iyo Afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo Shiinaha balse shirkani waxa inta badan diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka Shiinaha iyo Soomaaliya kaasi oo dhowrkii sano la soo dhaafay mid si aad u sareeya dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa weerar afka ku qaaday madaxda Villa Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka digay waxa uu ugu yeeray abaabul qabiilaysan baryaani si aad uga socda baraha bulshada iyo siyaasadda Soomaaliya. Shariif Sheekh Axmed ayaa ku eedeeyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya inay ku mashquulsan yihiin kala qaybinta xuduudda shacabka Soomaaliyeed halka ay ka shaqeyn lahaayeen isku duubnida dadka shacabka Soomaaliyeed. si kastaba Shariif Sheekh Axmed ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu fariin ugu diray madaxda dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana madaxda ayuu ugu baaqay inay ku eegaadaan inay yihiin indhaha shacabka Soomaaliyeed sidoo kale aysan kala dhantaalin awoodda shacabka Soomaaliyeed xilligan lagu guda jiro difaaca dalka ayna meesha ka baxdo kan ayaa iga soo horjeeda iyo kan aniga ayuu iga soo xiga. ugu dambeyn madaxda Villa Soomaaliya ayuu ugu baaqay inay la yimaadaan aragti la isku wadi la shacabka Soomaaliyeed loogana gudbi lahaa kala qubanka haatan ka dhex jira dadka iyo ku tagrifalka awoodnimada dawladnimada Soomaaliya. wagaag daawadayaal wali waxaad daawanaysaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka balse markaan aan eegno saraakiisha ugu sarsareysay dalkaasi Itoobiya ayaa garay gudaha dhulka dawlad deegaanka Soomaalida. dawladda dalkaasi Itoobiya ayaa mar kale maanta qaaday tallaabo culus waxayna saraakiisha ugu sarsareysay ciidamada dalkaasi Itoobiya ay gaareen magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka dawlad deegaanka Soomaalida. يا جود عيدمد الدولة دالكاسي توبي وفد وجامنيو أي جورو وحي جارين ذا دالكاسي مجلول كدولة دجان كسومالي دا كان مجلة الجلجيك الكاسي وسوى لوجو سودوية أنا سودوين دي زكاة غيب قريب مدحينا دولة دجان كسومالي دا مصطفى عقدر وكان كنا بتقليدا عن طيب أحمد نور إيه مسؤولين كله هو كم جين عمل كدولة دجان كسومالي دا جيت كصفة كسركيشان يتوبي يا وحال لقول شيء inay la xiriirto ka qaybgalka xuska 47 ee aasaaska ciidamada taliska bariga Itoobiya oo markii ugu horeysay lagu qabanayo magaalada Jigjiga ee dhulka dawlad deegaanka Soomaalida. maamulka ra'iisul wasaaraha uu ka yahay Dr. Abiy Ahmed ayaa hadda qaaday dhabihi dagaalka wuxuuna soo bandhigay hubkii ugu culusaa kaasi oo gantalada balastiga ee -20 waxayna tani muujinaysaa in Itoobiya ay markan u diyaar garowday dagaal toos ah oo ay la galayso dalalka ka dhisan bariga Afrika. dhinaca ciidamada Israa'iil ayaa goor toogasho ku dilay caruur u dhalatay dalka Falastiin. ciidamada Israa'iil ayaa toogasho ku dilay wiil dhalinyaro oo daadiisa lagu sheegay 16 jir oo u dhashay dalka Falastiin kaasi oo ku sugnaa xirada qaxootiga ee Farsa wakaalada wararka ee Wafa ee ka warta inta badan dalka Falastiin iyo arrimahaas ayaa ku warantay in askartu ay xabada ku fureen dhowr xabadood isla markaana wiil yar oo dhalinyaro kaasi oo daadiisa ay ku sheegtay inuu qiyaasi lagu qiyaasay da'da 16 sano
ayna u diideen inay gargaar degdeg ah ay u fidiyaan dhaqaatiirta halkaasi ku sugan iyo in la gaarsiiyo ambalaasta si loo gaarsiiyo isbitaalada kale ee ku yaala gudaha halkaasi. Xamaas ayaa iyadu sheegtay in Netanyahu uu fashiliyay heshiis xabad joojin isagoo diiday in ciidamadiisa uu ka saaro marinka Filibiina ee Gaza. Duqeymaha joogtada ee Israa'iil ay ku hayso Gaza ayaa waxay ku dishay ugu yaraan 18 Falastiiniin wararkii ugu dambeeyay markii la eego dhacdooyinkii iyo saacadii la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalkaasi Falastiin gaar ahaan deegaanka Gaza. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa iyagu sheegeen in 400,000 oo qof oo deganaa lagu qasbay inay guryahooda isaga baxaan iyaga oo qoryaha ku haysta bariga Jenin iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay xaaladda dagaal ay u egtahay mid aysan xilligani xakameyn karin dadka rayidka ah ee ku nool daanta galbeed ee la haysto. ugu yaraan 4,861 qof ayaa ku dhintay 94,384 kalena way ku dhaawacmeen dagaalka Israa'iil ee Gaza ka socda. ugu yaraan 139 qof ayaa lagu dilay Israa'iil weerarkii Xamaas ay ku qaaday gudaha Israa'iil ee dhacay 7 Oktoobar sanadkii la soo dhaafay 2023. wagaag dawdeed gudahan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka intaas ayaan ku soo afmeeraya.